Exkeyga wuxuu ka soo baxay xabsiga. Waxa xasuustaan hadda ka hor inaan intii soo istaagay oo idin dhahay 15 sano lagu xukumay. Waa wuxuu asaga dad inuu ii soo diray ay ii sheegeen. Ninkaas waa nahab weynaaday. oo maxaa la dhahay adduunka he has nothing to lose. على كل حال halkaana waxa idin la soo istaaga boqsi anoo idin dhahayo lacagta waa la sabgarista saan la sameeyay hadda waxa igu dhacday waxa igu soo dhacday musiibadii banaankaas fadhiday xabsiga ka soo baxday oo adduuniya aakhiro dhan sas ka dhigay waxa markuu arko ama soo haweystaa oo aniga qaarijiya boqsigaas xun dartiisa wariyaa boqsigu waxa ku jira baasaboorro waay hadaan ku tusaa hada isoo haweysatid oo ay isdhahdid axshadii lacag meel ku aruurisay oo u tag ilmaha wax fiirna iska dhigay qaariji wallahi la cadeym cadaanka inta bastooladu haysto adiga leh yaada naftaada ku weynin wuxuu ahaa 2017 meeqaalaga jooga 8 sano ku dhawaan soma videogaas waa markii aan habeen shaqeyn jiray cunug yarna isbitaal iga taalay oo aniga dhan aan kala yaalay oo he okay guys waxaan rabaa fariin yar inaad iga faafisaan ood meela uga gaarsiisaan exkeyga wuxuu ka soo baxay xabsiga waxa xasuustaan hadda ka hor inaan intii soo istaagay oo idin dhahay 15 sano lagu xukumay waa wuxuu asaga dad inuu ii soo diray ay ii sheegeen. Ninkaas waa nahab weynaaday. oo maxaa la dhahay adduunka he has nothing to lose. ilmahaas ee toole ilaaha siiyay ma ogi dan iyo xaajo kama lahan. hadda xabsigu ka soo baxay ala kulli xaal xabsiga ka soo bax banaanku jooga carruurtiisu soo baxay ilaa shinaagta uu ii soo dardarsan jiro u qadara ii soo dardarsaday naagtiya waxay iga dhaadhicinaysaa ilmihiisu u baahan yahay inuu la hadlo oo hayaan ku dhaha la hadlo ilmaha hadeer waa ka shalay because ninku wuxuu ku hadlay على كل حال waan ka shalay because English uu ku hadlayo waa waxa madowga iyo xabsiga iyo balaayada looga hadlo ilmahayagana in English ka soo kale iga bartaan waan ka dhintaa xitaa markay guriga joogaan ee wax yaro madowga English kooda gashtaan oo ku qayliya ma jeceli inay ku hadlaan marka gaaro ma dhahan gaaros ka soo hadlaan oo kale u hadlo yani kaas ilmahaas markuu kula hadlaayana madaxa ay xanuuna because ma jecel English ka soo kale inay ga bartaan على كل حال halkaana waxa idin la soo istaaga boqsi anoo idin dhahayo lacagta waa la sabgarista saan la sameeyay hadda waxa igu dhacday waxa igu soo dhacday musiibadii banaankaas fadhiday xabsiga ka soo baxday oo adduuniya aakhiro dhan sas ka dhigay waxa markuu arko ama soo haweystaa oo aniga qaarijiya boqsigaas xun dartiisa wariyaa boqsigu waxa ku jira baasaboorro waay hadaan ku tusaa hada isoo haweysatid oo ay isdhahdid axshadii lacag meel ku aruurisay oo u tag ilmaha wax fiirna iska dhigay qaariji wallahi la cadeym cadaanka inta bastooladu haysto adiga leh yaada naftaada ku weynin agagaarka gurigeena ma soo istaagi karto camera meel kasta noogu xiran meel qarsoon oo dhan noogu xiran taxaarana ka tahay meeshan in ka tus meel camera noogu qarsoon tahay xabsiga waa ka soo baxday naaga isu adeejisa aan leedahay 15 sano lagu xukumay soo dheh caloosha ka soo rid ana marka kaan hooyadii aabay ma ku dhalwaamay maxaa iga ka gal waa waxna ilmihayga waa korooyaan aabay haystaan nin jecel haystaan oo korsanay waa og YouTube-kayga inaa fiirsato halkaas inta fadhiisat si fiican u fiirso laakiin maalinka soo haweysatid oo ay isdhahday alla ilaahi naagti lacag baa guriga u taale u tag naftaada ha ku weynin ورب الكعبة وح أنا قريان يالين مجرتو